راد مالي بيني راد مالي يا لا لا ودون مودا meesha la yiraahdo burco ama la yiraahdo inta ka sokaysa sheekh waxa lacagta Soomaaliland ka shaqeyso horta waa mid koobaad lacagtan waxa la keenay dalka 1994 ay wadanka timi burcana ma gaarin ergaabana ma gaarin dhulkaasna ma gaarin in short horta waxa weeyaan sidaad sheegtay lacagta Soomaaliland waxa fidinteeda la bilaabay waxaan u maleynayaa ahayd November 1994 marka maxaa keenay ba su'aasha la isweydiin karaa in dalka kala haro lacagta isticmaalka lacagta waxa keenay waxa weeyaan inta imika lacagta aad ku cananayso dadka oo anigu deegaamada aan ka soo jeedo waliba ay kamid yihiin ayaga diiday lacagta ee cid uma diidin gobolka togdheer oo adiguna aad la shahan ka soo jeedid wasiir waxa ka socota lacagtii qiimaarka ahayd ee Soomaaliya aad bay dadweynuhu arinta uga hadleen xukuumaduna dhowr jeer bay sheegtay inay ka bedelayso miisaaniyadda dawladda lagu daray dadkana waxay ku haysaa dhibaato fara badan oo qaadacsigii ayay sixir barar ku keentay iyo maciishadii waxaan loo yaqaano inflationka ama ayay ku haysaa oo dad meel ay ka socoto kale ma jirto arinta wasiir Saciid Sulub Maxamed adigoo ah wasiirada ugu dhow madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ma ka hawl gashay in laga bedelo dadka lacagta muddo badan ku xadniman welina aan laga bedelin balaqaadada badan ay u dhaceen waan ka hawlgalay iyana wax badan baa su'aasha laga weydiiyay waan ka jawaabay dareenkayga iyo dareenka dadku waa iskaga mid dareenkayga iyo dareenka madaxweynuhu waa iskaga mid arrintaa ballanqaad baan sameynay arrintiina under process bay ahayd lagu bedelayay lacagta ilaa waxaan ka rajaynayaa inaanay doorashadu dhicin iyadoo oo aan lacagta la bedelin waana noo qorshaysan tahay shacabka reer Soomaaliland ee ku nool wadanka بيني راد مالي يا لا لا ودون مودا